السلام عليكم. شيخ عبد الله محمد سعيد wuxuu aragga beelay isagoo jira 2 sano. Wuxuu xifdiyay Quraanka iyo tafsiirka. Haddana waa bara tafsiir. Wuxuu in muddo la daalaa-dhacayay buro ka soo baxday caloosha. caloosha waa bura kaaga taala ganacuna waa bararan yahay buron weynina waa kugu taala dalka meel dibadda meel aan ahayna wax lagagama qaban karo. Sheekh Cabdullaahi Maxamed Siciid waxaa loo qaaday Muqdisho si uu u gala qaliimo. Waxay dhaqaatiirtu saareen xamiyadiisa si bukaankiisa xal loogu helo, balse xaaladiisa caafimaad way ka sii dartay. Baaritaankii ugu dambeeyay lagu sameeyayna waxaa lagu sheegay inuu qabo xanuunka kansarka kana asiibay ganaca. waxaa maanta agtayada jooga nin la yiraaho Cabdullaahi Maxamed Siciid, ninkaas oo indhabeelay isagoo 2 jir ah ka dabadowna Quraanka bartay, tafsiirkana bartay, hadeerna ah nin mudarris ah oo tafsiirka akhriya. ninkaas waa xanuunsaday, waxa la geeyay xamar, hawl qalliin badan baa lagu sameeyay. hadhowdii misana waa la dhugtay, xanuunka waa kaga sii daray, dibad ma ahay meel kale wax lagama qaban karo baa la yiri. marka waxaan idin sheegayaa ninkaas oo ninka indhaha la oo mudarris ah oo sheekh ah oo xanuunkaas hayo oo la yiri bura caloosha kaaga taal oo dibad loo baahan yahay, waxaan islaamka ogeysiinaynaa ninka in loo kaalmayo, ninka in wax loo qabto. wixii faahfaahinna waxaad kala xiriiri kartaa bukaanka sahal number 775794 Salama Bank 9 Amal Bank 1013785712 Dahab 66775794